wasaaradda dastuurka iyo golayaasha xiriirka Somaliland ayaa kulan aqooneed soconayay muddo 3 maalmood waxa ay u soo gabagabeeyeen maanta qaybaha kala duwan ee bulshada waxaana warkan inoo faahfaahinaya wariyaha Xamse Dabare. wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka Somaliland ayaa tababar lagu falanqeynayay dhiibashada iyo dastuurka oo socday muddo 3 cisho u soo xidhay qaybo kamid ah wariyaasha ka howlgala magaalada Hargeysa waxaana ka soo qayb galay madax ka socotay wasaaradda xiriirka golayaasha ee dastuurka dalka furay agaasimaha waaxda qorsheynta Cabdirasaaq Yuusuf Tanaakili muddadii 3 cisho ahayd halkan wada joognay runtii waxay ahayd 3 cisho qiimo badan oo ay halkan ku qaadinayeen casharo la xiriira wadaniyada iyo dastuurka iyo xuquuqda aadanaha runtii waxaan u mahadcelinaynaa ururka suxufiyiinta Somaliland Soldier oo wada shaqeyntan aanu leenahay ka soo wada shaqeynay barnaamijka inoo hirgalo waxaan kaloo mahadcelinaynaa hay'adda Oxfam oo iyaduna barnaamijkan qaybta farsamada naga caawisay hogaaminteeda iyo fulinteedana ay leedahay wasaaradda xiriirka golayaasha arrimaha dastuurku waxaana iyagu halkaas hadalka qaatay gudoomiyaasha ururka suxufiyiinta Soldier iyo Wicha qaar ka mid ah wariyaashii tababarkan loo soo xidhay tababarka si joogta ah u qaadanayeen runtii waa calaamad wanaagsan saxafiyiintu ka dhalinyar buu badan yihiin dhalinyar ay balwadu ku yartahay ama aan balwad lahayn buu badan yihiin marka taasaa keentay runtii inay u dhabar adeegaan una dhegtaan ciyaartii duruusta iyo casharada loogu baaqay ee ay madashan ku dhiganayaan runtii waan ugu mahadnaqaynaa wasaaradda xiriirka golayaasha iyo dastuurka inay tababarkan u samayso saxafiyiinta waayo albaabka koowaad ee laga galo in qofku uu garan karo waxa mas'uuliyadiisu tahay iyo waxa uu xaq u leeyahay aad bay u mahadsan yihiin wasaaradda xiriirka golayaasha iyo dastuurka iyo hay'adda Oxfam gudoomiyaha ururka saxafiyiinta ee Soldier Maxamuud iyo madaxda kale wasaaradda ka qaybgalayaasha saxafiyiinta intiina waan salaamaya waa gabagabo salaadii baa dhow waxaan u malaynayaa dhalinyaradii tababaranaysa ka warantay waxay ku barteen anaga lafteeda waxaan baranooday waan idinka qayb baan ahayn haddaan nahay xitaa gudoomiyaasha waan idinka qayb qaadanay kelmadu waan idin odhanayaa oo ku camal falay inta barateen wasaaradda iyo hay'adana waxaan leeyahay dastuurka Somaliland 2 cisho iyo 3 cisho shuruucda lagu baran karo waxaan leeyahay suxufiyiinta loo sii wadaa oo tababaradani aanay noqonin qaar bilow oo dhamaada ee ay noqdaan qaar la bilaabay oo sii socda mahadcelinayaa mas'uuliyiinta ugu sareeyo agaasimaha waaxda dastuurka agaasimaha wasaaradda dastuurka Mr. Jamaal iyo dhamaan mas'uuliyiinta ka soo qayb gashay Wicha iyo Soldier waxaan leeyahay waad ku mahadsantihiin mar labaad haddii aan ka hadlo tababarkan oo faa'iido badan loo lahaa annaka gaar ahaan hablaha oo maaragtay aqoontooda kor loo soo qaada ay muhiim qorsheynta gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Somaliland Soldier iyo sidoo kale gudoomiyaha ururka haweenka Wicha runtii waxaan tababarkan ka faa'iidnay waxyaabo badan oo aanan hore u aqoon maanta waxaan wariyaasha ka mid ahay ka soo qayb galay tababarkan agaasimaha guud ee xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka Jaamac Cabdi Muuse wuxuu u yiri hadalku wuxuu noqonayaa dardaaran duco iyo inaan is xasuusino qodobada halkan aynu ku qaadanay oo kooban aan ku bilaabo inaan u mahadnaqo qabaqabiyayaashii iyo madaalayaashii hawsha soo waday hadday macallimiinta yihiin iyo hadday madaxda kale wasaaradda yihiin muddadii 3 maalmood ugu dambeysay heeganka ugu jira kalsoonida tababarkan dastuurka iyo wadaniyada qaar ka mid ah wariyaashii tababarka loo soo xidhay muddada 3 cisho socday ayaa gabagabadii la guddoonsiiyay shahaado sharaf Xamse Dabare RTN TV Hargeysa.